السلام عليكم. السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada video cusub. maanta waxaan doonanahay iqaamadeyda way soo dhacday marka videogan wuxuu ku saabsanaan doonaa sida iqaamada loo qaato iyo sida loo cusboonaysiiyo iyo shuruuciyada laga baahan yahay kana marto saa u hesho degenaansho ama iqaamo. marka videoga dhamaadkiisa ku sharxa kan maskaraatay waa meeshan والجناحة صحابته ماشي بس كم صعنا بس راعينا كلال آد قدر إنه وجرها عادي مر ماشان صومالي أي عليا أي ما تمارن هي كواتا إيمانه مركا يا أنا صار ماشي إقامة لك هذا وإيماني ماشان واي هدو تاني شرحة مركز ما جاء صعبة burada ماشي إقامة جوكنا waxaan oo dhan alaab la soo diray alaab la soo diray waxaan oo dhan soo qaadanay qaamada waa kana ya miiska sugeynaa korkaasaan koreynaa waa ii buuxsamo waa taleefanka
soo qaatay shirkadana laga qaataa PTT Cargo oo badaatay geli jireen aan walaana marka xaafada aadeyna waa furaa meeshaan ay ku soo saabta xaafada imaanay oo fureena hadda ya bismillahir rahmanir rahim ilaahay 10 sano gacanta ugu dhacdo ayagoo 10 sano gacanta ugu dhacday xamada kanuu ku imaadaa marka hore waxaa ku qoran luqad Turki, English, German waa malaynaa iyo luqada kale Farsi iyo Carabi waa ku qoran marka xamada gudaha ku jira waa kaas nambarkayga aniga kharsada sug xamada waa kaas ujeedaan sawirka meesha ku yaala magacaaga inaad Soomaali tahay iyo gobolka joogtay marka iqaamada sidaas ay u taalaa gadaalna waxaa ku yaalo waqtiga qaadatay iyo waqtigu ka dhacayo marka hadda waxaan galeynaa sharaxaada oo sida loo qaadanayo video ku xiga iqaamada sidan waaye markay dhacdo expire noqoto meeshaas la duleelinaa midkaan update waaye midka hadda soo qaatay magacayga waa kaas waqtiga dhashtay iyo magaalada aan joogo Karabuk na Soomaali ah meesha ku qoran tahay gadaalna waxaa ku qoran waqtiga qaadatay iyo waqtigu ka dhacayo marka iqaamadana waa short term ardayana ahay yani short term la siiyaa marka arday tahay saacad hadda waxaan sharxaa iqaamada qaabka loo helo iyo waxyaalaha laga baahan yahay marka hore iqaamadan aan hadda wato waxaa waaye short term macnaheeda yani waqti yar maadaama aad wadanka ku cusub tahay waxaa laga baahan yahay hal sano luqad ah inaad soo marto marka sanadkan magaalada aan joogo marka bilooyin ay siiyaan bilooyinkaas ku qaataa marka iqaamada Ankara oo kale hadda joogto iyo magaalada kale way kala sharci duwan yihiin qaar sanad ay ku siinayaan si toos marka sidaas loo kala duwan yahay
ugu horeyn markaa wadanka soo gasho oo ku cusub tahay waxaa leedahay 3 bilood. 3daas bilood gudaheeda waxaa lagaaga baahan yahay haddaa wadankaa joogaysid inaad si sharciga ku joogto. sida sharciga waxaa lagaaga baahan yahay iqaamada marka sabab baa lagaa rabaa inaad ku joogto. sababta aad u joogto maxay tahay? businessman maa tahay, arday maa tahay, guri maad iibsanay, meesha maa usoo gurtay, yani waxyaalahaas aa la iska rabaa. marka ardaynimadan ku sharxa ardaynimada wax ka ogaani. ardaynimada haddaan ii sharxo jaamacadday ku xiran tahay. marka hore jaamacadda ayaa tagaysaa, waxaad ka qaadanaya warqad caddeynaysa inaad arday tahay, luqadda baranayo. 1 sano luqad waajib waaye, qof walbo ku waajibtaa. warqadaas markaa qaadato warqad kale jirto la dhahayo sagorta insurance-kaas aad qaadanay, iyo waxaa lagaa baahan yahay address, warqadda jaamacadda ardaynimada caddeynayso, warqadda insurance-ka, warqadda addresskaaga. intaasaa lagaa baahan yahay saa u xareysato iqaamad. waxaa ugu muhiimsan laakiin warqadda ardaynimada caddeynaysa. marka wixii kale su-aal a qabtaan insha allah commentiga igu soo qora, ila soo xiriira. waxaan isku dayayaa inta aqoonteeda saa ugu jawaabo, inta aqoonaan ka leeyahay. asxaabta marka midda oo long termiga ah iqaamada sidoo waxaa ka mid ah luqadda markaa dhammaysato jaamacadda waxaa ka doonanaysaa faculty. hadday faculty ku siiso maadada baranayso waxay hadday tahay mid 2 sano ah, kuwa iqaamad waxay ku siinayaan 2 sano iqaamad ah. hadday tahay 4 sanona waxay ku siinayaan 4 sano degenaansho. sidaasaa lagu helaa ardaynimo markaa tahay. marka intaasaan ogahay hadda. aniga meeshan waxaa ku joogaa master. marka faculty marka waxaa waaye 2 sano. waxaan rajeynaa marka uu ii dhamaado luqadda 2 sano inay siiyaan insha allah. marka halkaan aan kusoo gabagabeynaya videoga. waxaa su-aala qabtaan commentiga, like, subscribe, share mataqaaniin. sidaas iyo nabadgelyo.